maamulka waqooyi galbeed ee Soomaaliland ayaa si aad uga hor yimid bayaanka ay dowladda federaalka Soomaaliya ay ka soo saartay xiriirada diblomaasiyadeed ee Soomaaliland iyadoo ku tilmaamtay mid marhaabin ah oo aan ka turjumaynin xaqiiqooyinka jira. Bayaan ay soo saartay Soomaaliland ayay ku sheegtay in madax banaaneed ay qaadatay 26 Juun 1960 isla markaana ay dib ula soo noqotay 18 May 1991 kadib burburkii dowladda dhexe ee Soomaaliya. Soomaaliland waxay xustay in tan iyo xilligaasi aysan ka amar qaadan Muqdisho isla markaana ay si madax bannaan u maamuleysay arrimaheeda gudaha iyo kuwa dibadda. sidoo kale bayaanka ayaa lagu sheegay in safarada hogaamiyaha maamulkaasi Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro ay muujinayaan kobaca saameynta diblomaasiyadeed ee Soomaaliland iyo xiriirada ay la yeelanayso beesha caalamka. Soomaaliland waxay ku dooday in aysan jirin hadal ama tallaabo ka timaada dowladda federaalka Soomaaliya oo ka hortagi kara himilooyinka iyo sidoo kale danaha shacabka Soomaaliland. Xukuumadda Soomaaliland waxay sheegtay in muddo ka badan 30 sano ay dhisaysay hay'ado dowladeed, ciidan qaran, nidaam sharci iyo hanaan doorashooyin, isla markaana ay yeelatay iskaashi caalami ah kuwaas oo ay ku tilmaamtay xaqiiqooyin aan lagu bedeli karin hadallo siyaasadeed. dhanka kale, Soomaaliland ayaa gaashaanka u dareertay eedeymaha la xiriira in xiriirada ay la yeelanayso dalalka kale ay ka hor imaanayaan sharciga caalamiga ah. waxay ku adkaysatay in siyaasadeeda arrimaha dibadda ay ku dhisan tahay danaha qaranka, rabitaanka shacabka, wada noolaanshaha nabadeed iyo iskaashi caalami ah. bayaanka ayaa sidoo kale lagu xusay in xiriirka Soomaaliland ay la leedahay Israa'iil ama dowlad kasta oo kale uu yahay go'aan ay ku sheegtay mid madax bannaan kuna saleysan danaha qaranka, amniga gobolka iyo iskaashiga dhaqaale. Soomaaliland ayaa war-saxaafadeedka waxa ay ku cadeysay in aysan aqbali doonin cadaadis, hanjabaad ama faragelin lagu hayo xiriirada dibadda. ugu dambeyn, Soomaaliland ayaa sheegtay in ay sii wadi doonto difaaca waxa ay ku tilmaamtay madax bannaanideeda, wadajirkeeda dhuleed iyo nabadeeda, iyadoo adkeysay in ay ka go'an tahay ilaalinta xasiloonida, nabadda iyo diblomaasiyadda ee mas'uul ah.